بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله وإنا إليه راجعون. إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله نحرسته walaalkeen Nuur Xasan Xuseen ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda Itoobiya oo ku geeriyooday saakay dalka Ingiriiska. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinaynaa naxariistiisa inuu geliyo jannadii firdawsana oo geeyo qabrigiisa Ilaahay u waasiciyo annagana gadaashiisa Ilaahay nafadnaynin ahalkiisa iyo qaraabadiisa Ilaahay oo mutaqana barakeeyo. waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo marka ugu horeysa ahalkiisa iyo qaraabadiisa saaxiibadiisa iyo ummadda Soomaaliyeed dhamaan أنا كهلا مجا مجا عقويس كيجا مجا مدرسة حزبية قارن وميل الله وذا صعدة وحنا لنا إلهي سبحانه وتعالى نحرست جنة سيو رنتي رئيس وزراء أنا جا وحنا كسر وذا شقينا أرنتي تبهوش السنة لو كوني يسديد لو كوني يسقال وكذا عضي درك جبوتي رنتي وحوها نناديات وقيم بدن نبدأ هذا جعل رنتي مسكحدي سنة آدي وبلارنتهاي go'aankii wanaagsanaya oo ka qaatay arrimaha dib u heshiisiintana ay keeneen in lagu guuleysto inay noqoto dib u heshiisiintaas mid mara dhasha maantana runtii qayb weyn ka ah dawladnimada maanta la haysto marka Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro dabcan xilaalka oo soo qabtay waa kala duwanayeen waxaan u maleynaa waxa uu ka soo bilaabay wardiya Faransa kadibna booliska kadibna maxaan ku yiraahdaa bishcas Soomaaliya marka xilaalkaas kala duwan oo soo qabta runtii amaan waxaan ahayn anigu kulay kuma maqlin intii dawladda Itoobiya aan joogana wada shaqeynay waxaanu ahay safiirkeeni dalka Talyaaniga iyo isla markaasna EU-da waxa uu soo qabta dalkan shaqo wanaagsan marka waxaan rajaynaynaa in uu noqdo tilmaan iyo runtii xasuus wanaagsan oo qaranka Soomaaliyeed mar walba xasuustaan markale waa u tacsiinayna ahalkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa wax yar inaan munaasabadan uga faa'iideysto cudurkan hadda socda oo coronavirus dad badan oo Soomaaliyeed oo ku dilay dalalka reer Yurub gaar ahaan marka waxayna u muuqataa in dadka Soomaaliyeed aysan u hoggaansamin awaamirta iyo talooyinka caafimaad ee loo soo jeedinayo marka waxaan codsanayaa dadka Soomaaliyeed talooyinka caafimaad inay u dhagan nuglaadaan waana wax diintu nafarayso cudurkan wuxuu la mid yahay cudurka daacuunka ayuu la mid yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu faray dadka muslimiinta ah hadii cudurkaas u dilaaco qof walba meesha uu joogo inuu joogo qof cusub oo san soo galin qof joogana meesha inuu ka bixin marka dad badan oo dhahaayaan arka Ilaahay hala tala saarto marka waxa jira wax la yiraahdo tawakkul iyo tawakkulka waxa waaye in aad la timaado wixii Ilaahay ku faray oo dadaal ah tawakkulkana waxa waa inaadan la imaanin marka dadka Soomaalida qaarkood waxay dadka ugu yeeraan waa tawakkul diintuna ma ogola hal loo hoggaansamo awaamirta caafimaadka ee idin siinayaan dadka caafimaadka ku takhasusay aad iyo aad oo mahadsantiin waxaan rajaynayaa waxaan ka baryaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala cudurkan inuu ka qaado dadka Soomaaliyeed dhamaan guud ahaan adduunka oo dhan aad iyo aad oo mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.